I haven't done it intentionally, but thank you everybody who is here for all your support and being behind me. saaka 6dii aroornimo ayay soo bilaabatay inay u dareeraan codbixiyaasha goobaha codka lagu bixiyo xaruntan iminka aan ku suganahay ayaa waxa ay tahay halka ugu badan ee codbixiyaashu ay u soo dareereen saaka waana goobta codka ugu badan ee lagu soo doorto xildhibaanka xaafadan codbixintu ay ka dhacday Leila Abuukar oo iyadu ka mid ahayd mudanayaasha u tartama kursiga degmada Yirangabili oo ka kooban 8 xaafadood ayaa waxa la tartamaya dhanka kale xisbigii mucaaradka ahaa ee Labourka iyo waliba xisbiga Green iyo kuwa kale oo iyagu si madax banaan u tartamayay dabcan markii caawa la tiriyo codadkii nasiib wanaag Leila waxa ay keentay bundo aad u wanaagsan inkastoo la sheegay in xisbiga Labourka ay heleen codad kale ay ka heleen xisbiga kale ee Green taas oo ay sababtay marka in Leila laga saramaro tirada laga guuleystay aad bay u yarayd marka aad bay u fiican tahay waa sidaan doonayay noqon laakiin tirada aad bay u yarayd laga guuleystay Soomaalida gobolkan degan iyo Afrikaanka ama dadka muslimiinta ah baan ilaahdee waxay aad ugu han weynayeen Leila inay soo baxdo hase ahaatee sida hore u sheegtay xisbiga ka soo horjeeda xisbiga Leila waa xisbiga Labourka oo xawli ku socday daraadeed waxa suurtagal noqon weyday Leila kursigeeda yeesho markii Greensku ay codkii ugu shubeen xisbiga ka soo horjeeday ee Labourka rajada goobaha codadka laga bixiyo ayaa ahayd mid qof walba Leila uu u haminayay inay hogaamiso degmada The feeling here today has been really good this afternoon especially there's been good support lots of people want to take the Leila How to Vote card and we're very hopeful that this evening that she can pull off a victory and hopefully become the next member for Yirrungpilly in this area. laakiin cod isku biirsasho kadib ayaa Leila looga itaal roonaaday kursigii baarlamaanka Queensland tan waa dabayl siyaasadeed ee ku socota xisbiyada Liberal Nationalka ee wadanka oo dhan iyadoo xisbiga Labourku uu ku guuleystay dhawaan gobolka Victoria sidoo kale gobolka South Australia guud ahaan gobolkan Queensland oo xisbiga Liberalka xukumayay ayaa waxa daaqada kala baxay xisbiga Labourka oo bariyahan dambe xawli ku socda dhanka siyaasadda dadaal fara badan waan sameeyay marka aad bay u fiican tahay horta marka ugu horeysa waxa muhiim ah qofka bini'aadanku inuu dhaw waxa ma samayn kara ma ka gali kara at least waan sameeyay Leila iyo madaxa ololaha doorashadeeda ayaa kula hadlay shaqaalihii ku howlanaa goobta cod bixinta ay ka dhacaysay isla markaana ay uga mahad celisay muddadii 4 bilood sidii howlkarnimada ay ula shaqeeyeen iyadoo ay ujeedadu ahayd in ay hanato kursiga degmada ay iska soo sharaxday sidoo kale waxay u mahad celisay dhammaan Soomaalida Australia ee taageerada niyadda ah siiyay waxaan rabaa inaan ku dhadto Soomaaliyeed aad iyo aad bay u mahadsan yihiin adduunka daafaheeda meel kasta ay joogaan taageerada ay ii muujiyeen Leila Abuukar 4 bil ka badan ayaa waxa ay ku dadaalaysay sidii ay ku hanan lahayd kursiga degmada Yirrungabili oo ka kooban 8 xaafadood Brian Umar Baafe wararka Universal bartamaha magaalada Brisbane gobolka Queensland